أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسودو channel أقوم official iyo Facebook page ka أقوم online. maanta waxaan qaadan doonaa example-ka 14aad ee chapter-ka koowaad ee maadada xisaabta fasalka form 4 la socod wanaagsan. example-ka waxaan qaadan doonaa 14aad. right waxaa qortaa sin 3x in terms of sin x. waxaa qortaa sin x oo qorayna marka in termska maxaa haysanaa marka waxaa haysanaa sin 3x ayaa haysanaa. sin 3x marka maxaa u dhigmaan dhahaynaa waxaa u dhigmaa sin 2x plus x. x kan horgeliis waa 1 kan waa 2 haddii isku darno waa 3x. marka sin 3x waxaa u dhigmaa sin 2x plus x ayaa u dhigmaa. marka sin a plus b ayuu noqday. sin a plus b waxaan ku shaqeynaynaa marka qaacidadii ahayd fufur sin a waxaa u taagan 2x aye cos b na waxaa u taagan x. sin 2x oo ku dhacsan cos x plus cos 2x oo ku dhacsan sin x. sin 2 waa bedeleynaa marka sin 2 intaan waa bedeleynaa waxaan ku bedelinaynaa 2 sin x cos x ayaan ku bedelinaynaa. waxaan soo qaadanaynaa cos x oo lagu dhuftay cos x plus ka soo qaad cos 2x maxaa ku bedeleynaa oo lagu helay cos square minus sin square x. cos square x minus sin square x. sin x na soo qaado oo halkaan dhig sin x dheh. aye intaan noo soo qaado marka 2 sin x. 2 sin x soo qaadanay cos x kan waxaa ku dhufanaynaa cos x kale waxaa noqonaa marka cos square x oo noqon doonaa plus intaan marka waxaan sameynaynaa cos square iyo sin isku dhufo wuxuu noqonaa marka cos square x oo ku dhacsan sin x. aye minus ka soo qaad sin square iyo sin x isku dhufo waa sin cubic x y. waxaan soo qaadanaynaa intaan soo qaado 2 sin x cos square meel walba waxaa ku bedelinaynaa 1 minus sin square x ku bedelinaynaa. cos square waxaa ku bedelanay 1 minus sin square x plus cos square haddana waxaa ku bedelinaynaa 1 minus sin square x oo ku dhacsan sin x minus sin cubic x. kadib waxaan sameynaynaa 2 sin x kan 1 ku dhufo waa 2 sin x y. 2 sin x soo qaad haddana minus sin square ku dhufo waa minus 2 sin cubic x y plus aye 1 kan ku dhufo sin x ku dhufo waa sin x haddana minus sin square x ku dhufo sin x waa minus sin cubic x y. aye minus sin cubic x kan soo qaad yaa isleh waxaa isleh 2 sin x iyo waxaa isleh sin x isleh isku dar kan horgeliis waa 1 kan waa 2 3 sin x y. aye minus 2 sin cubic x waxaa ku daraynaa kan minus 1 waa horgeliisa kan waa minus 1 kale isku dar waa 4 sin cubic x y asina waa 4 sin marka waxaa soo baxay 3 sin x minus 4 sin cubic x ayaa soo baxday. marka qaybta kale aan fiirina marka example-ka qaybihiisa kale aan fiirinaynaa example-ka qaybtiisa kale. example-ka ku xiga waxaan gelaynaa marka hore qaybta kale ku xigta sum and product ayaan gelaynaa. sum and product ayaan fiirinaynaa. sum and product to sum waa wuxuu ka bilaaban doonaa ku dhufsho wuxuuna aadi doonaa marka loo bedeli doonaa ku dar ama ka jar loo bedeli doonaa cos a oo ku dhacsan cos b haday tahay formka haday u qoran tahay waxaan dhahaynaa half cos a plus b plus cos a minus b waa. sin a sin b hadduu yahayna oo ku dhufsho ah waxaan dhahaynaa half cos a minus b minus cos a plus b ayaan dhahaynaa. sin a plus b ama sin a oo ku dhacsan cos b waxaan ku furaynaa half sin a plus b plus sin a minus b. haddii uu yahay cos a oo lagu dhuftay sin b na waxaan dhahaynaa half sin a plus b minus sin a minus b ayaan dhihi doonaa. waa product to sum waa marka product to sum. example-kan fiir marka right waxaa qortaa 4 cos 25 sin 35 as sum or difference ama ku dar ama minus ama faraq ku yahay uu shaqee of two functions ka. waxaa haysanaa 4 cos 25 sin ku dhacsan 25 waxay la mid tahay 4 tan waa horgalaha oo cos wato waa banaanka iska dhig hal la hoos dhigo laba qaacidadii soo qaadanay oo ah cos iyo sin. sin a plus b a meeqa waa 25 waaye b na meeqa waa 25 waa isku darnay minus
sin soo qaado haye a meeqa waaye waa 75 minus b na meeqa waaye waa 25 marka waxaan dhahaynaa afartan horgalaha ah waxaan sameynaa marka labadan marka isku darno afarta horgalaha marka soo qaadano waxaan ku dhufano labo afar ku dhufo hal meeqa waaye waa afar labo qayb labo waaye marka labo banaanka noo yaalo sin labadan isku dar intaan aan muujino horta marka hore intaan aan muujinayna inta waxaan ku haysanaa 4 aan ku haysanaa 4ta marka halkan ku dhufano afar labo qayb labo marka labo markay tahay banaanka maxaa yaalo sin 75 iyo 25 isku dar waa 100 kaas waxaan kusii dhufanaynaa labo ama aan muujino labada waatan aan dhehnaa bracket 4 labada waxay ka imaaday afar dhufa hal afar waaye labo qayb labo banaanka noo yaala haye sin halkan waxaa noo yaala marka sin 75 iyo 25 isku dar meeqa waaye 100 waaye 100 degree minus soo qaad sin haye 75 iyo 25 kala jar waa 50 waaye sin 50 marka labada hadda ku dhufanayna marka laba marka la dhufto maxaa soo baxay jawaabta 2 sin 100 maadaama laba kale ku dhufo minus 2 sin 50 waa marka labadan gudaha marka kusii dhufanay noqonaysaa waxay noqonaysaa 2 sin 100 ay minus 2 sin 2 maxay noqonay konton ay noqonay iyada waa sidaa marka waa product to sum waa marka qaybta kale aan fiirino example kale aan fiirino saynu waxaan noqonaa sum to product waa sum oo ku bilaabana product aye sum to product maxaa haysanaa marka sin a plus sin b haysanaa sin a plus sin b hadoo noqdo kana isticmaalayna 2 sin a plus b loo qeybo 2 oo ku dhacsan cos a minus b loo qeybo 2 sin a minus b hadoo noqdo waa kana marka sin a minus sin b waxaan ku shaqeynaynaa 2 cos a plus b divided by 2 sin a minus b divided by 2 cos a plus cos b hadoo noqdo kana isticmaalaynaa 2 cos a plus b divided by 2 oo ku dhacsan cos a minus b divided by 2 sin halkan waxaa laga rabaa cos laga rabaa marka halkan cos a laga rabaa cos a minus cos b laga rabaa halka marka cos a cos b hadoo noqdo oo minus ah kana isticmaalayna minus 2 sin a plus b divided by 2 oo ku dhacsan sin a minus b divided by 2 kaas ayaa loo isticmaali doonaa marka aan fiirino example-ka qaybtiisa kale kan example-kiisa aan fiirino example-ka 1.17 right waxaa qortaa sin 2 theta minus sin 4 theta as product two functions product oo qoraynaa sin 2 theta minus sin 4 theta yaa iskale formuladiisa aawo waxaa iskale 2 cos a plus b divided by 2 oo ku dhacsan sin a minus b divided by 2 aa ku dhacsan marka a meeqa waaye a waxaa u taagan waa 2 theta b maxaa u taagan 4 theta marka kan waa a kan waa b waa marka 4 theta waa b waa marka b aan qaadnayna 2 cos soo qaado a meeqa waaye 2 theta waaye plus b meeqa waa 4 theta waaye divided by 2 oo ku dhacsan sin a meeqa waa 2 theta waaye minus b meeqa waa 4 theta waaye divided by 4 divided by 2 cos soo qaado haye 2 iyo 4 isku dar waa 6 theta loo qeybo 2 oo ku dhacsan sin haye labadan kala jar waa minus theta divided by 2 waa haye marka waxaa labadan 2 cos 6 u qeyb 2 3 theta oo ku dhacsan sin minus 2 u qeyb 2 waa minus 1 waa theta minus theta marka minus haduu saan qaato minus ku bixi doona banaanka ku bixi doona cos kan haduu minus qaato waa baabi'in doona marka minus kan sin ku to banaanka la soo bixiyay minus 2 cos 3 theta oo ku dhacsan sin theta waa marka
isaga qaybtaas qaybta waa sidaa. waxaan gelaynaa marka qaybta xigta half angle aan fiirino. haddii examplekaas inaad fahamtay in kale ku hubi numberkan 6 iyo numberkan 7 kala shaqee waa sum iyo to product waa labada example waa marka hadda u dambeeyay saas exercise isku fiiriyo half angle aan fiirinayna marka example ka 18aad horta marka hore qaacidadan ayaa ka horeeya qaacidadan soo fiirinayna half angle hagashi barkeed waa marka half angle and in the following identities formula symbol plus or minus indicates that the sign is chosen dooqa ku xiran tahay marka ama quadrant la joogo markaas ku xiran tahay iyadoo la tixgelinayo quadrantiga hay cos a divided by 2 waxa la mid tahay ama lagu helaa plus or minus radical 1 plus cos a divided by 2 oo radical ku jirto dhamaantii tan a divided by 2 haday tahayna waxa ku heli doontaa plus or minus radical 1 minus cos a divided by 1 plus cos a sin a divided by 2 haday tahay waxa isticmaal doontaa formulahan radical 1 minus cos a divided by 2 tan marka waxa ku heli kartaa sin a divided by 1 plus cos a tan marka waxa ku heli kartaa 1 minus cos a divided by sin a waa ku heli kartaa marka hadda aan fiirino marka example-ka hadda u laabanayna example-ka 18aad hadda aan u laabanayna fiirinayna example-ka 18aad example-ka 18aad find the exact value qiimaha saxda ah of cos 15 degree use the isticmaalaya half angle identities mar walba iska akhri formula waa muhiim ciwaanku waa muhiim half angle lagu dira hadda identitieska for cosine marka maxaa haysanaa cos 15 degree yaa u dhigma waxaa u dhigma half cos 30 degree yaa u dhigma hal haddii 30 ku dhufnaa 30 laba qeyb 15 aa u dhigma marka cos 15 waxaa u dhigma intaan u dhigma half cos 30 degree aa u dhigma waxaa la mid tahay marka qaacidada soo qaado cos maxaa la wilaay radical 1 plus cos a maxaa u qaadanaynaa 30 degree aa u qaadanaynaa a divide by 2 ay radical 1 plus cos 30 meeqa waay cos 30 meeqa waay radical 3 over 2 waay oo loo sii qeybay dhamaantooda 2 waxaa la mid tahay radical haye qaybtan hooseba waxa la baabiinaa labadana la baabiinaa labadan si loo baabiiyo korkan laba ku dhufo intana laba ku dhufo marka laba meel walba ku dhufanayna 2 over 2 ku dhufanayna marka maxaa soo baxay intii soo qaadane korna laba ku dhufo hoosna laba ku dhufo waxaa la mid tahay marka 2 radical waxa ku dhufanayna marka 2dan waxa ku dhufanayna 1 ku dhufo waa 2 waay 2 waay halkaan ku qornay 2 radical ku jirto 2 plus radical 2 ku dhufo radical 3 2dan waxay ku dhici doontaa banaanka ku dhici doontaa halkaas ku dhici doontaa marka maxay noqonay 2 radical 3 noqon doontaa 2dan la bixi doon halkaan ku dhici doontaa waxay noqon doontaa 2 ay noqon doontaa 2dan la bixi doonta marka 2dan isla bixi doonaan marka waxaa soo haraya radical 3 soo hari doona haye 2 iyo 2 isku dhufo meeqa waa 4 waaye qaybta kor xididka ma baxda laakiin 4 xidid way ka baxdaa qaybta hoose sidaas lagu bixiyay marka xididka waa 2 example ku xiga aan fiirino example ku xiga example ka xiga soo gabagabeynayna example xiga find the exact value qiimaha saxda ah tan 22.5 degree use adoo isticmaalaya identitieska tan a over 2 waxaa la mid tahay sin a loo qeybiyo 1 plus cos a formula isticmaala lagu dhahay haye since maadaama 22.5 yaa u dhigmaan dhehnaa half aan dhehnaa half sin half 45 degree hal ku dhufo 45 waa labo qeyb 22.5 waa replace a waxaa ku bedelaynaa marka 45 degree ku bedelaynaa tan 22.5 degree waxaa la mid tahay tan 45 loo qeybiyay 2 ay u dhigantaa waxaa la mid tahay marka sin haye qaacidada isticmaala lagu dhahay maano sin a maxaa ku bedela 45 divide by 1 plus cos a maxaa ku bedelayna 45 sin 45 meeqa waaye radical 2 over 2 waaye radical 2 over 2 waaye marka divide by 1 kan soo qaado plus
cos 45 meeq waay radical 2 over 2 waay radical 2 over 2 marka qaybtan sida soo qaatay radical 2 over 2 oo loo qeybiyay 1 plus radical 2 over 2 kor iyo hoos waxa ku dhufan doonaa 2 over 2 labadan la rabo in la baabiyo laba ku dhufo qaybta sare qaybtan hoosena laba ku dhufo seena ay marka radical 2 aan ku dhufo radical 2 waa 2 radical 2 waay labadan iyo labada inta ku dhici doonto aan isla bixiyay maxaa soo haray radical 2 bisa soo haray divide by haye 2 1 ku dhufo waa 2 waay plus 2 ku dhufo radical 2 ku dhufo waa 2 radical 2 labadan hadda ay la bixi doontaa marka maxaa soo haray radical 2 oo soo haray waxay la mid tahay soo qaado 2 radical 2 oo loo qeybiyay 2 plus radical 2 maadaama hooseeyaha radicalka la ogoleen waxaan ku baabi'inaynaa marka kor iyo hoos waxaan ku dhufanaynaa conjugate waxa la yiraahdo qaybta hoose ee cagsigeeda ku dhufo marka waxaan ku dhufanaynaa inta 2 minus radical 2 loo qeybiyay 2 minus radical 2 cagsigeeda ku dhufanaynaa waxay la mid tahay haye 2dan soo qaad radical 2 ku dhufo maxay noqonay 2 radical 2 waa haye 2dan soo qaad minus radical 2 ku dhufo waa radical 4 waaye xeydka saar 2 waa divide by haye qaybta hoose maxaa soo haray 2 ku dhufo waa 4 haye 2 ku dhufo radical 2 waa minus radical 2 waa muujinaynaa inaan muujinaa xoogaa fiican waa muujinaynaa si loo fahmo marka qaybtan yar aan dhahno 2 ku dhufo 2 ku dhufo radical 2 waxay noqoneen halkan aan ku qoraa 2 radical 2 radical 2 haye 2 soo qaad radical 2 soo qaad radical 2 ku dhufo waa radical 4 oo haye xeydka saar waa 4 xeyd markii laga saaro waa 2 4 radical 4 xeydka saar waxay noqonaya marka 2 divide by 2 iyo 2 isku dhufo waxay noqonaya 4 ay 2 ku dhufo minus radical 2 maxay noqonaya minus 2 radical 2 hay 2 waa dhamaaday radical 2 ku dhufo 2 maxay noqonaya marka plus 2 radical 2 ay radical 2 iyo minus radical 2 isku dhufo waa radical 4 xeydka saar waa 2 waxay la mid tahay marka qaybta sare soo qaado 2 radical 2 minus 2 qaybta sare soo qaatay divide by kan oo minus ah colorka iska bedelo kan oo minus ah iyo kan oo plus ah isla bixi maxaa soo haray marka 4 iyo 2 kala jar 2 waa haye labadan hoose labadan sare 2 radical 2 iyo minus 2 waxay wadaagaan common factor ay wadaagaan common factor 2 ay wadaagaan banaan ku dhig 2 radical 2 haday 2 loo qeybiyo waxaa soo haraya radical 2 soo haray bas minus 2 u qeybi 1 waa divide by hooseeya 2 haye markaas la bixinaynaa 2dan horgalaha ah iyo 2da hooseeya isla bixi labadan marka maxaa ku soo haray qaybta hoose qaybta sare ku soo hartay oo ah radical 2 minus 1 ku soo hartay intaa ku soo hartay marka waa radical 2 minus 1 ayaa ku soo hartay radical 2 minus 1 ayaa ku soo hartay halkaa ku soo gogoynaynaa marka example-kaas wixii su'aale ama comment nala wadaag aad aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.